iyadoo waxay ku xambaarsaneed iyadoo noloshaada jecel adigu se waxaad xambaarsan tahay adigoona ilaahay goormaad igu asturi doontaa adigu waa xambaarsan tahay iyadu markay ku xambaarsaneed cidna mayna ku lahayn ilmahayga xaqayga ma guti laakiin adu maanta inta yar markaad qaaday waxaad tiri hooyaday xaqeedii ma gutay marka isku mid ma noqonaysaan walidaalika hal aayad laguma hayo fi lgaalib yani ilaa qaliil oo ilaahay uu la dardaarmayo waalidiinta oo uu leeyahay awlaadiina u baarinimo fala liannahu dabiicaday ka mid tahay labada waalid ilaahay baa ku abuuray la socotaan ilmuhu marka ay dhashaan ay yar yihiin wada dhib socda walidaalika inta badan aabayaasha waa soo wada maray hadda meeshan dadka fadhiya aqoon leeyahay inta badan waqtigaas waa isaga tagnaa soo ma miskiintaas hooyadaas iyo ilmahaas baan isaga tagnaa guriga joogana waa ka tagnaa waqtiga isaga waqtiga aad ugu dhib badneyd weey dheef ma lihi waxaan dhimahayn ma lihi haddaan ilaahay raxmad una qalbiga hooyada uusan gelin in badan maalin kasta waxaa meelahan maaragtay qashin qubka sanduuqyada qashin qubka ilmo badan baa loogu tagi lahaa ilmo badan loogu tagi laakiin ilaahay maxabba iyo kalgacayl iyo xub cajiib leh baa ilaahay qalbigooda u geliyay marka waxaan ka wadaa waalidiinta xaqooda saasuu u noqday ilaahay hadiyo goor ula dardaarmaa insaanka an ishkur lii waliwaalidayka labada waalid wabilwaalidayni ixsaana laakiin inta badan maba jirto mar uu ilaahay leeyahay bii hooyadu ilmaha u ixsaan fala lianna dabiicadeeday ka mid tahay marka qaarkiis markii la isqabqabtay iyo walwaalidaatu yurducna awlaadahunna xawlayni kaamilayn sheeka isqabashaa markay timaado uma laga hadlaa xuquuqda ay ilmahani u leeyahay laakiin inta badan ilaahay wuxuu ku waaniyaa adoomadiisa bal uu ka dhigay bacda shukrihi ilaahay mahadnaqa kan ugu weyn isaga iskale huwa rabbuna rabbiga xaqiiqiga waa isaga muxuu ku xijiyay alwaalidayn liannahu waxay ku ixsaan faleen iyagoon waxba ka rajaynin adiga waxbaad u qabanaysaan aan islahay soomaad gar marka lidaalika axaqu man dukira huwa rabu lcaalamiin walaalaya rabbigeen seen ku gaari karna dariiqiisa dariiqa aan rabbigeen u marayno ee aan rabbigeen ku gaarayno ee ridihiisa aan ku helayno ee rabbigeen nooga raali noqonayo waa dariiq waadix ah oo muuqda nabigaa noo tilmaamay xadiidkii qudsiga ahaa إلهي أكسر رويي إلهي باله جل جلاله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولي أولياء إذا كمل ولي جاء نكي لعلوبو وجو وحان كو إعلامي أو كو شيء أو كو ورجلي إن أنا أقول لك علمني إلهي عدو الله علمني مسألة جو سنكرة مركا إلهي ولي جاسات كو قال إلهي طريقة يدي ورب المامي وحويل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أدون كيغو يمسو دوان وإسكما كي جعلي سين شيء وأحب إلي مما افترضت عليه وح أن كجعل هي وح أن كفر ديالي وأدون كي يمسو دوان يا مجروي بمعنى وح كستوت سميسو waxaa ka fiican oo ka fadli badan ilaahayna ka jecel yahay inaad dhammaystirto wuxuu kugu farad yeelay maalan ilaahay muxuu nagu farad yeelay marka salaada la yiraahdo 5 salaadood soo ma 5 salaadood 5 salaadood inaad dhammaystirto oo iyaga ku dadaasho oo wuduu'ooda iyo arkaantooda iyo khushuuceeda aad ilaaliso ayaa ilaahay ka jecel yahay inaad kun ragca maalintii oo sunnah tukato 5 salaadood baa ilaahay agtiisa laga kala jecel yahay haddaad habeenkaasoo dhan taagnaato qiyaam u taagnaato oo salaada subaxaad ka seexato doqon dabbaalaa tahay oo ilaahay agtiisa xun aan fiicnayn ilaahay agtiisa fadli kama lihi maxaa yeelay habeenkaasoo dhan inaad taagnaato waxaa ka fadli badan adoo salaada subax si fiican u tukada bal nabigu waa ka noo sheegay calayhi salaatu wasalaam yiri ninkii salaada cishaha jamaaca ku tukada laana jamaacadu waa ka min kamaali salaa bay ka mid tahay adin naftirkaaga waa inaad dareentid maalintaad jamaaca ku tukatid صلاة الجماعة كتكتي إلي كاغا في عنته وكاغا فضل بدن صلاة كليا تكتي اسكو مد ما شو مدو عشانك جماعة كتكذا بوي وحلم إذا نين هبين كنسكي سوء نتاغنا فجر كنكي جماعة كتكذا وحلم إذا هي نين هبين كاسور نتاغنا في إله أكتيسة فرضكم ماشي وكتاغي فرضكم ماشي وكتاغي فير مركا
waxa ugu horeeya ee ilaahay ugu dhawaanayso salaada marka la yiraahdo waa inaad shanta salaadood aad kaamil ugu tukataa shanta salaadood say kaamil loogu noqon karaan saddex shay waa inaad salaad kasta iska ilaaliso salaad kasta saddex shay bay ka doonaysaa inaad ilaaliso si ay kaamil kugu noqoto waa mid koobaad wuduu'eeda buu nabigu yiri alayhi salatu wasalaam salaada wuduu'eeda waxa loo jeedaa isu diyaarinta salaada ويسدي هذين نقطه طهارة دي هذين نقطه استقبال القبلة هذين نقطه ماشي أتكون تكنيسي طهارة يعني شروط صحة الصلاة أردن وين التي ما هذه تكمل كدكتي